laba nin oo dhalinyaro ah oo doonayay inay helaan daawadayaal badan oo Livestream-kooda ah ayaa si geesinimo leh gacmo madan ugu fuulay tiir koronto oo aad u dheer kunooyin feet ah. Markii ay si guul leh u dhameeyeen caqabada aad bay u farxeen waxayna go'aansadeen inay cunto ka dalbadaan iyaga oo weli dusha tiirka ku sugan si ay u dabaaldegaan. Si lama filaan ah midkood ayaa dareemay tiirka oo si yar u ruxmaya balse kan kale ayaa si fudud u yidhi tiirkani waa bir adag kaliya wuu ruxmaa marka duufaan weyn timaado. Isla markiiba markii uu hadalka dhamaystay guux weyn ayaa hareeraha ka yeedhay cirka ayaa isla markiiba madow noqday hilaac ayaa cirka jeexay onkodkuna si xoog leh ayuu u dhacay. Iyagoo cabsi la gariiraya labadoodii waxay go'aansadeen inay isla markiiba hoos u soo degaan. midkood ayaa soo saaray xarig badbaado wuxuuna ku xiray jaranjarada. ilaahay dartiisa u istaag xataa hadaad mashquul tahay ilaahay dartiisa u istaag walaalkaygiiyo ma awoodaa inay gacantaada faafiso kelmadda qaaliga ah laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah. isagoo diyaar u ah inuu saaxiibkiis marka hore dejiyo. markaas ayuu u jeestay kamarada isagoo ismuujinaya si kibir leh. laakiin si lama filaan ah saaxiibkiis ayaa dib u soo fuulay oo si xoog leh uga tuuray tiirka. qalabkii badbaadadiisa ayaa isla markiiba jabay Livestream-kiina si kedis ah ayuu u goy daawadayaashuna way argagaxeen. intii uu ku sigtay inuu dhaco wuxuu si degdeg ah u furay baalashii kaydka ahaa barakute laakiin nasiib darro way ciladoobeen mana uu xakamayn karin. dabayl xoog leh ayaa u qaaday dhinaca dhisme u dhow. markii uu gudaha galay isla markiiba wuu istaagay isagoo yaaban dadka gudaha joogay waxay ku jireen wada hadal sir ah. qof walba ayaa si yaab leh u eegay. isla waqtigaas taleefan ayaa dhacay waardiye ayaa si shaki leh ugu soo jeestay martida aan la casuumin isagoo gacanta u taagay jeebkiisa. laakiin madaxii ayaa gacanta kor u taagay isagoo amray in la joojiyo. waxaa la ogaaday inay ninkan dhalinyarada ah u maleeyeen inuu yahay wakiilkii ay sugayeen. markii madaxii weydiiyey halka uu shandadiisa brief case ku sugan yahay ninkii dhalinyarada ahaa wuu wareeray. isla markiiba wakiilkii dhabta ahaa ayaa yimid isagoo sita shandadiisii. ninkii dhalinyarada ahaa didid qabow ayaa qabsaday maskaxdiisuna si xawli ah ayay u shaqaynaysay si uu xal u helo. xilligan adag wuxuu si degdeg ah u sameeyey qorshe wuxuuna bilaabay inuu labada dhinac ku qanciyo inuu isagu yahay maskaxdii ka dambaysay heshiiska.